nimankan aynu dirirayno halka ay hadda joogan xitaa in lagu weeraro xaqa sababtu waa maxay halka uu jooga nabadgeliyo kuma fadhiyo iyo dhibaato la'aan waa meesha madfaca ka soo riday halka uu madfaca ka soo riday way goojo isagu ku dilay istishaane meesha ku dhinta ka warkiis waa zaalim dhintay laakiin kan nool ee gacan lagu dhigo ama ha noqdo mid daawac ha noqdo ama mid maxbuus kala ha noqdo in la dilay iyo in la dhibaateeyo toona ma banaan kuwada dhinta waxa waajib ah meydkooda in la aaso meydkooda in la aaso oo sida muslimiinta kaleba loo aasayeen kuweena u aasayna inaynu u aasno baa waajib ah waa akhlaaq shariicadu ay ku farayso dhalinyarada waxaan leeyahay dagaalku ka reebi maayo iyo difaacu inaad akhlaaqadaadii iyo diintaadii ka dhardhigato ka reebi maayo waa inaad akhlaaqadaadii iyo habdhaqankaaga iyo gobonnimadaadii iyo gobonnimo dirirkaagii waxaa loo baahan yahay in aad ilaalisaa loo baahan inaad ilaaliso ayaa loo baahan yahay dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad difaac u tihiin oo aad hor taagan tihiin kuwo horar ku ah naftiina waxaad hor taagan tihiin kuwii saaxiibadiin dilay waxaad hor taagan tihiin oo aad iska difaacaysaan kuwii magaaladiina dumiyey waxaad iska difaacaysaan kuwii maatadiina iyo ehelkiina barakiciyey waxaad iska difaacaysaan kuwii dhaqaalihiina iyo ganacsigiina xidhay waxaad iska difaacaysaan kuwii waxbarashadiina xidhay iyadoo weliba aan ku bogaadinayo dhalinyarada intii ka noolay ee ama foonfoorra ahaa ama sideedaadda ahaa inay imtixaankii galeen inay imtixaanadii galeen taasi waxay ku tusinaysaa dhallinyaradeennu inay tahay dhalinyaro mustaqbal wanaagsan leh intay yimaadeen ayay waxay galeen imtixaanadii sideedka ee shahaadiga sideedaadka iyo imtixaanadii foonfoorradaba way galeen oo deegaamadii imtixaanada lagu qaaday bay ku galeen waxaan leeyahay akhlaaqdiinana ilaaliya halgankiina iyo difaaciinana laba jibaara alle tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum dadka qaar ba waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo nimankan aynu dirirayno dagaalka aynu kula jirnay aynu iskaga celinaynaa maxaa loo leeyahay waa dagaal xaqa waa dagaal xaqa halka ay hadda joogan xitaa in lagu weeraro xaqa sababtu waa maxay halka uu jooga nabadgeliyo kuma fadhiyo iyo dhibaato la'aan waa meesha madfaca ka soo riday halka uu madfaca ka soo riday way goojo alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد ولا ليال وحين قال لي أما وحا إن صوفوت صاري وإنه سو دوادي طبعا مالمود آدي أدو قيمة بدن وطبعا كوه الرئي بيش ذي الحجة أما بيش اللبية طبناد بلها هجري قاه bisha u dambaysa inta aanan ka warramin ama aanan wax ka tilmaamin tobanka maalmood fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo kelmaddaas waxaan leeyahay dhallinyaradeenna qiimaha badan ee u taagan halganka ee u taagan difaaca ay difaacanayaan naftooda iyo sharafkooda iyo hantidooda dhalinyaradaas oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka sokow halgankan lafdhabar u ah iminkana u taagan qaar fara badani nafahooda ay ku waayeen qaar kale ay ku dhaawacmeen kuwo kalena ay nool yihiin oo ay la nool yihiin mabda aada u qiimo badan oo islaamnimo gudaheed alle tabaaraka wa tacaala ku ammaanay nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi bogaadiyey oo ah difaacashada nafta iyo maalka iyo hantida waxaan dhallinyaradaa leeyahay ummad walba mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay dhallinyaradeeda haddii ummadda dhallinyaro wanaagsani ay u kacdo dhalinyarada wanaagsani waxay muujinayaan in ummaddaasi mustaqbal wanaagsan ay leedahay haddii aynu ilaahay tabaaraka wa tacaala nebiyadiisii dib u eegno
نبي الله إبراهيم عليه السلام سوى ويل دليراء وآدو دائر أي وحآدو قحماذي أصنامتي قومتي سؤي عابديين مركاسو دبئنتو أقاتي بربريي واللي سويديو وحيدادين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وحيدادين يا سيدان كفالي أو سيدان كسميي إلهي يده كاسي وحو كمدياي هو حد قدبي الظالمين تابو كمدي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وحيدادين وحانو مقلي نندل يراه إنه هوشن كدن بيي ninkaasoo afka asnaamtan ku hayn jiray oo la yiraahdo Ibraahim nin asnaamta necba ayaanu maqalay inuu asnaamtii burburiyay Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ku sheegay inuu nin dhalinyaraha wuxuu Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ka waramaya dhalinyarada Allah tabaaraka wa ta'ala qisadooda iyo sheekadooda uu kaga waramay suuradan oo Quraanka suuradihiisa kamida waa suuratul kahf وقال ذا لو يقانو أصحاب الكهف بل يردي قدك قلي يكلون تي يقول دين توضى العررية إلهي تبارك وتعالى هلك أسيحيي مدفر باذن أعد آني هردي كرين ومعجزة آنا هردي وصدح بقول يا ديرات سندود بهلك هردي صدح بقول يا سقال سندود بقدك كتشرين ألا مركو قلدا كور رمي يوحيدي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وحي هايان دالي يرو لكن دالي يران نوعي هايان وحي هايان دالي يرو رميي ربي قد أي هايان ألا وحليه تبارك وتعالى وآنو الزيادني وأكردني هنون أي هايان بلي ربي جل جلاله بدالي يرى داسي هايان دالي يرى اللي قشاك وحي هايان دالي يرى كحماضي oo nacay oo diiday ninkii xukumayay iyo dawladii meesha ay joogeen ka jirtay shirkigii iyo qurunkii ay ku jireen alle qeyrkii ay caabudayeen dhalinyaro arinta ka dhiidhiyay oo diiday bay ahaayeen saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ee diintan u hiiliyay ee u gargaaray ee bari iyo bogoxba gaarsiiyay waqooyi iyo koonfurba gaarsiiyay نبي صلوات ربي وسلامه عليه الدفاعية قرب استاقي دليري أهايا يقوم دليري أهايا دليري ذا محينو طولو شأني قودية حال كود أوينينينا نبا سؤال ويديو مركز وحيدي إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحماة وعيدي haddii aan weynaysiiyo dhalinyarada xaalkooda iyo sha'nigoodan aad u buunbuuniyo dhalinyaradu hadda ogow oo waxaad ogaataa inay mucjizooyin oo dhan iyagu aabow yihiin wuxuu yidhi wadamada waxaa dhufaysay iyo gidaarrow ah dhalinyarada kuwii ilaalinayay marka ay ka seexdaan dhalinyaraa dhufaysu noqota oo difaac iyo gidaar u noqota buu yidhi marka dhalinyaradaas baan maanta raba inaan kelmad idhaahdo kelmadda aan leeyahay waxa weeyaan waa idinku bogaadinaynaa halgankii aad gasheen waxaan rabnaa inaad sii laba jibaartaan waxaan rabnaa xaqa koobaad ee aad ilaalinaysaan inuu noqdo xaqa ilaahay tabaaraka wa tacaala idinku leeyahay oo ah cibaadadiisa inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa ilaalisaan waayo alla tabaaraka wa tacaala wuxuu idiin abuuray inoo wada abuuray cibaado وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أنا أبورين جنكي إنسي إني عابدان مويانا وحكى لأم أبورين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى وحليه ضضوا عابد ربك الله إذن أبوري عابدا يكو إذن كورينا أبوري وحد مدنتهن وإذن كل بودي إن هذه الله كعب ستان ما داموا الله تبارك وتعالى إذن أبوري وألا إذن أرزقي وألا إذن نوليني وألا إذن إلاليني وألا إذن دلي وألا إذن صوبحيني وألا دور استاقي دونتان الله حق وإذن كليه إلالية صلاة إلالية وصلاة ميلا كل عميس مركا الدفاع عددك يد ونفط هذا يعني تذا كتشرت صلاة حتى كاد عميس
haddii aad istaag ku tukan kari weydo sidii kale aad ku tukan karaysaad ku tukanaysa hadday kula gaadho inaad orod ku tukato orod baad ku tukanaysaa kii istaag ku tukan kari waaye xanuunsanayey ayaa la yidhi fadhi ku tuko haddii fadhi aad ku tukan kari weydo jiif ku tuko ilaahay tabaaraka wa tacaala salaadiisa ilaaliya alla tabaaraka wa tacaala cibaadooyinka kale uu idinku leeyahay ilaaliya markaasaa rabbi jalla jalaaluhu inoo hiilinaya oo hiilka ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo soo degdegaya iska ilaaliya macaasida iyo dunuubta ka fogaada daroogada maanka doorinaysa ee keenaysa inaad macsiyo iyo dunuub waaweyn oo kale ku dhacdo inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala aflagaadaysay daroogadu keentaa macaasida kale iska ilaaliya macsiyada iyo dembiga waa lagu jabaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh iyo saxaabadiisii ayaa waxay duulaan ku qaadeen meesha la yidhaahdo xunayn niman gaalaabaa halkaa isku urursaday saxaabadu maalinkaa aad iyo aad bay u tiro badan yihiin tay ahaan iyo tiro ahaanba waa fiican yihiin laakiin way iscajabiyeen oo waxay yidhaahdeen maanta aad baanu u tiro badannahay tiro yaraanna looga adkaan maayo waxay ilaaween rabbi jalla jalaaluhu inay cuskadaan oo tala saartaan judhii horeba markii gaaladii fooda la isdaray way ka adkaadeen gaaladii muddadii hore waa laga adkaaday dagaalka qaybtiisii hore allah ka warramaya wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin alla wuxuu leeyahay maalinkii xunayn wakti ay idin cajab gelisay badnidiin oo alle tabaaraka wa tacaala agti aanay waxba ka tarin waxba idinka tarin waxba idinmay tarin tiro badnidiinni dhulkiina uu cidhiidhi idinku noqday waasacnimadii uu waasac ahaa iyadoo lala qabo kadibna aad dabada jeediseen buu leeyahay rabbi jalla jalaaluhu nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh markii saxaabo badani ay dib u carareen maalinkaa waa taagan yahay oo wuxuu leeyahay ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuطalib anigu nebi baan ahay oo taasi been ma aha oo nebinimada been ka sheegi maayo ina cabdilmuطalibna waan ahayoo ma boqo buu leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh cabdilmuطalib iyo dirkii baqdin laguma ogo laguma yaqaan saasuu leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh cabbaas buu leeyahay u qayli oo xusuusi geedkii ay ilaahay tabaarak nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh heshiiskii iyo baycada ay kula galeen ayuu leeyahay geedkaa xusuusi ilaa uu qayliyey cabbaas oo ahaa nin aad iyo aad u cod dheer oo marka uu meel ka qayliyo masaafo aad u dheer codkiisa laga maqli jiray markaasuu ku dhaway yaa asxaaba samura yaa asxaaba samura wuxuu xusuusiyey qudhac ay nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi bayco kula galeen war qudhacaa nimankii baycada ku galayow markaasay dib u soo noqdeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala cadowgooda ka guuleeyey macsiyadu marka jab bay keentaa macaasidu in la jabay keentaa ilaahay innaga waa inoo hiiliyey oo qoladii inagu gardarootay rabbi jalla jalaaluhu waa inooga hiiliyey hiilka ilaahay waxa uu ku sii kordhaya oo ku sii bullaalaya oo ku sii adkaanaya innagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala u dhowaana innagoo xadgudubka iska ilaalina innagoo ilaalina ama la inaga helo akhlaaqdii iyo dhaqankii qofka muslimka ahaa lagu yaqaanay xataa dagaal haddii uu ku jiro qofka muslimkaahi habdhaqan buu leeyahay iyo akhlaaq uu kaga duwan yahay dadyowga kale aan muslimiinta ahayn nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh saxaabada marka uu duulaan u diray ee cidda ay la dirinayaan weliba gaalo ay tahay innagu kuwaynu ishaynaa waa kuwo muslimiin oo inaga gardaran markay gaalo la dagaalamayaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu odhan jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala magiciisa ku duuloo alle tala saarta wuxuu odhan jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ilmo yar ha dilina wuxuu odhan jiray mid da'a ha dilina buu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray geed ha goynina midho leh wuxuu odhan jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kuwa aad dishaan ha googoynina oo ha suurad iyo muuqaal xumaynina buu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam haddii mid muslima aad isdishaan oo uu yahay horor aad iska celinayso haddii uu dhaawacmo xitaa inaad dhaawac tirto sharcigu kuma ogola la dhaawac tiri maayo ka maxbuuskee la qabto la dili maayo waa la hagaajinaya ka dhaawacmana la ruuxu togi maayo oo shareecada islaamku kuma ogola
oo waxa lagu xeerinayo isagoo ka gardaran ayaa haddana waxa lagu xeerinayaa ka dhaawacmay oo aan loo dilayn islaamnimada ayaa lagu xeerinaya isagoo ku dilaya dee aad istishaanay meesha ku dhinta ka warkiisa wakaas waa baab gaara dhimay waa dhaalim dhintay laakiin kan noole gacan lagu dhigo ama ha noqdo mid dhaawaca ha noqdo ama mid maxbuus kale ha noqdo in la dilay iyo in la dhibaateeyo toona ma bannaan kuwooda dhinta waxaa waajib ah meydkooda in la aaso meydkooda in la aaso oo sida muslimiinta kaleba loo aasayaynu kuweena u aasayna inaynu u aasno baa waajib ah waa akhlaaq shariicadu ay ku farayso dhalinyarada waxaan leeyahay dagaalku kaa reebi maayo iyo difaacu inaad akhlaaqdaadii iyo diintaadii ka dhardhigato kaa reebi maayo waa inaad akhlaaqdaadii iyo habdhaqankaagii iyo gobonnimadaadii iyo gobonnimo dirirkaagii waxaa loo baahan yahay in aad ilaalisaa loo baahan inaad ilaaliso ayaa loo baahan yahay dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad difaac u tihiin oo aada hor taagan tihiin kuwo horar ku ah naftiina waxaad hor taagan tihiin kuwii saaxiibadiin dilay waxaad hor taagan tihiin oo aad iska difaacaysaan kuwii magaaladiina dumiyey waxaad iska difaacaysaan kuwii maatadiina iyo ehelkiina barakiciyey waxaad iska difaacaysaan kuwii dhaqaalihiina iyo ganacsigiina xidhay waxaad iska difaacaysaan kuwii waxbarashadiina xidhay iyadoo weliba aan ku bogaadinayo dhalinyarada intii ka noolay ee ama foonfoorra ahaa ama sideedaadda ahaa inay imtixaankii galeen inay imtixaanadii galeen taasi waxay ku tusinaysaa dhalinyaradeennu inay tahay dhalinyaro mustaqbal wanaagsan leh intay yimaadeen ayay waxay galeen imtixaanadii sideedka ee shahaadiga sideedaadka iyo imtixaanadii foonfoorradaba way galeen oo deegaamadii imtixaanada lagu qaaday bay ku galeen waxaan leeyahay akhlaaqdiinana ilaaliya halgankiina iyo difaaciinana laba jibaara alle tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum dadka qaar ba waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo nimankan aynu dirirayno dagaalka aynu kula jirnay aynu iskaga celinaynaa maxaa loo leeyahay waa dagaal xaqa waa dagaal xaqa halkaa ay hadda joogaan xitaa in lagu weeraraa xaqa sababtu waa maxay halkaa uu joogo nabadgelyo kuma fadhiyo iyo dhibaato la-aane waa meeshuu madfaca ka soo ridayo waa halka uu madfaca ka soo ridayo way gooja